warbixin guud ee natiijada imtixaanka sanad dugsiyeedka 2022-2023 maamulka gobolka Banaadir waxaa sharaf weyn u ah in uu maanta oo ah maalinimo Talaado ah taariikhduna tahay 1 bisha 8 2023 uu ku dhawaaqo natiijada imtixaanka fasalka 8 ee sanad dugsiyeedka 2022-2023 waa sanadkii afraad oo agaasinka waxbarashada maamulka gobolka Banaadir qaadayo imtixaanka shahaadiga ee dugsiga dhexe iyadoo uu jiro koror tirada ardayda ka qayb galaysa imtixaanka sanadka dambayso sanadkani waxaa imtixaanka u fariistay tiro dhan 39372 arday oo imtixaanka ku galay 76 xarumood oo ku kala baahsan degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir natiijada imtixaanka fasalka 8 ee sanad dugsiyeedka 2023 waxaa gudbay tiro arday dhan 300,873 oo u dhigmato celcelis ahaan boqolkiiba 98 arday inay baastay halka ardayda aan gudbin ay gaarayaan 535 arday oo u dhigmato celcelis ahaan boqolkiiba 2 haddii tiradaas loo fiirsho jinsi ahaan tirada gudubtay ee labka ah waxa ay gaarayaan 17,237 oo u dhigmato boqolkiiba 55 dhadiguna waxay gaarayaan 13,601 oo u dhigmato boqolkiiba 43 celceliskii haray ee boqolkiiba 2 ahaa gabdhuhu waxay ka yihiin boqolkiiba 0.7 halka wiilashu waxay ka yihiin 1.3 tobanka kaalin ee ugu sareyso natiijada imtixaanka fasalka 8 ee sanad dugsiyeedka 2022-2023 ardayga kaalinta koowaad u galay gobolka Banaadir waxaa lagu magacaabaa Yacquub Maxamed Cadde Maxamed oo dhigto dugsiga Imaam Maalik wuxuu ku baasay celcelis ahaan boqolkiiba 97.5 ardayga labaad Maxamed Cusmaan Cabdi Macow Imaam Maalik Oodweyne wuxuu ku baasay boqolkiiba 96.5 ardayga saddexaad oo gabar ah waxaa la yiraahdaa magaceeda Amal Cabduqaadir Maxamuud Kaahiye waxay dhigataa iskuulka Miima 2 waxayna ku baastay dhibco gaaraya celcelis ahaan 95.88 ardayga afraad Axmed Maxamed Calasow Tooxo Albayaan Yaaqshi wuxuu ku baastay celcelis ahaan 95.63 ardayga shanaad Ayuub Cabdiwali Cumar Nuur Imaam Shaafici hoose dhexe hodan wuxuu ku baasay 95.38 ardayga lixaad waa gabar Xafsa Bashiir Maxamuud Maxamed iskuulka Giira dhibcaha celceliska ku baastay waa 95.25 kaalinta toddobaad waxaa wada galay 3 arday ardayga koowaad wuxuu noqonayaa Cali Cumar Cali Faqay Jaabir bin Xayaan 2 waa dugsigiisa wuxuu ku baasay darajada 95.13 waxaa isla kaalintaas la galay oo toddobaad Mustafa Salaad Cabdulle Xuseen Daynile dhibcahana waa 95.13 waxaa isla kaalintaas toddobaad la galay arday saddexaad oo magaciisa la yiraahdo Abuukar Maxamed Faarax Cali Zubayr waa dugsiga dhibcuhuna waa 95.13 celcelis ahaan ardayga kaalinta sideed galay oo gabar ah Asmaa Xasan Aadam Diiriye Taysiir International School dhibcuhu ay ku celcelis ahaan ku baastay waa 94.88 ardayga kaalinta sagaalaad galay Maxamed Cumar Cabdi Xuseen Ihya iskuulka la yiraahdo oo ay dhigtaa dhibcahana waa 94.63 ardayga ugu dambeeyo ee kaalinta toddobaad galay oo gabar ah Sundus Cabdiwali Nuur Cusmaan iskuulka Giire 94.5 ayay ku baastay agaasinka waxbarashada maamulka gobolka Banaadir waxa uu u hambaliyo iyo bagaadin u dirayaa 10 kaalin ee kaalmaha hore galay sidoo kalena waxa uu u mahad celinayaa dhammaan inta gacan ka geysatay taabagelinta imtixaanka oo ugu horeeyaan madaxda maamulka gobolka Banaadir wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare kormeerayaasha hay'adaha amniga macallimiinta waalidiinta iyo dhammaan bahda waxbarashada dhammaan